بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن او wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedka qodobada ku jiraan daawadayaal idinku soo bandhigi doonana waxa ka mid noqonaya khilaafyo iyo caqabado hor leh oo hareeyay doorashada Soomaaliya dibna u dhigi kara waqtigii lagu ballamay in doorashada Soomaaliya qabsoonto haddaba waa kuwa caqabadaha iyo sidoo kale khilaafyada ku horgudban inay qabsoonto doorashada guud ee Soomaaliya halkan ayaa daawadayaal idinku soo gudbi doona faahfaahin arrintaasi la xiriira qodobada kale aan daawadayaal halkan idinku la wadaagi doonana waxa ka mid noqonaya xildhibaan Maareeye wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya oo shaaciyay cidda ka dambeysay kala jabkii loo geystay guddiga doorashada ee Somaliland haddaba uu eedeeyay xildhibaanku yaasa ka dambeeya kala jabka loo geystay guddiga gobolada waqooyi halkan ayaa daawadayaal idinku soo gudbin doona faahfaahin arrintaasi la xiriira qodobada kale aan daawadayaal halkan idinku soo bandhigi doonana waxa ka mid noqonaya gudoomiyaha gobolka Gedo oo soo saaray baaq degdeg ah iyo xiisad xoogan oo taagan haddaba maxay tahay xiisada taagan iyadoo shalay ra'iisul wasaare Roble uu halkaasi ka soo dhaqaaqay halkan ayaa daawadayaal idinku sharaxi doona warar kala duwan oo ka soo baxaya gobolka Gedo qodobada kale aan daawadayaal idinku weenana barnaamijkeena waxa ka qayb noqon doona maamulada Puntland iyo Galmudug oo gaaray heshiis cusub haddaba muxuu dhigayaa heshiiskan ee wada gaareen labada maamul muxuu salka ku haya halkan ayaa daawadayaal idinku shaacin doona Itoobiyaanka ku nool magaalada Hargeysa ee Somaliland dibadbaxayay dhigeen kadib arrin xasaasi ah oo lagu eedeeyay haddaba waa qodob kale oo ku jira qodobada daawadayaal aan idinku soo bandhigi doono barnaamij wareedka aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawade muuqaalkan qaybta hoose ee faalida lagu gudbiyay commentiga aragtida ay nagu la wadaag markaana daawade ku soo dhaw qodobadii dulmarkaa soo daawatay oo intaasi ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya khilaafyo iyo caqabado hor leh ayaa hareeyay doorashada Soomaaliya waxayna dib u dhigi karaan waqtigii lagu ballamay in doorashada dhacdo doorashada Soomaaliya ayaa waxa hareeyay caqabado cusub kadib markii guddiga doorashada gobolada waqooyi ay laba u kala jabeen kuwaasi oo kala taabacsan ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdilaahi dhinacyada kala taabacsan Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa labadaba ku dhawaaqay inay qabteen doorasho lagu soo doortay gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa arrintaasi oo durba dad badan ku qeexeen khilaaf hor leh Faysal Roble oo ka faalooda arrimaha Geeska Afrika ayaa BBC-da u sheegay in khilaafkan ka soo ifbaxay guddiyada doorashooyinka gobolada waqooyi uu saameyn ku yeelan karo heshiiskii laga gaaray arrimaha doorashada maadaama mid ka mid ah qodobada haatan uu khilaaf hareeyay khilaafkan saameyn uu ku yeelan karaa heshiiska doorashada waxyeelo weyn uu ku keeni karaa haddii la rabo in doorashada ay xaq noqoto waa in heshiiska hore gacan rimis laga ilaaliyo dhinaca ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa waray soo saareen waxay ku sheegeen in xubnaha guddiga maamulaya kuraasta labada aqal ee Somaliland ee doorteen shir guddoon cusub isla markaana gudoomiye loo doortay Qadar Xariir Xuseen warqada shalay uu shaaciyay xafiiska gudoomiyaha aqalka sare ayaa lagu sheegay in liiska ka soo baxa xafiiska ra'iisul wasaare ku-xigeenka uu yahay mid hal dhinac u xaglinaya oo aanan cadaalad ahayn waxay ku baaqeen in xubnaha qaar laga saaro maadaama ay ku eedeeyeen inay ka tirsan yihiin shaqaalaha dawladda iyo ciidanka Faysal Roble wuxuu qabaa in gudoomiyaha guddiyada doorashada ay saameyn weyn ku leeyihiin natiijada sidaas darteedna cid kasta ay ku qasban tahay in ay dhankeeda loolanka ka gasho waxaa socday muddooyinkii u dambeeyay dadaalo dhowr ah oo lagu xalinayo khilaafka dhanka xulista xubnaha waqooyiga oo u dhaxeeya ra'iisul wasaare Mahdi Guuleed iyo sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdilaahi kuwaasi oo ay markii ay labadooduba soo wada magacaabeen guddiyadan u muuqatay mid la xaliyay oo laga gudbay khilaafkan cusub ayaa u muuqda in xaalka weli halkiisa taagan yahay geesta kalena daawadayaal haddaynu eegno wararka ku gadaaman gobolada waqooyi doorashadooda ayaanu ku guda jirnaaye xildhibaan Maareeye ayaa shaaciyay cidda ka dambeysay kala jabkii guddiga doorashada Somaliland wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay khilaafka cusub ee ka dhex qarxay garabyada guddiyada doorashooyinka Somaliland Maareeye oo ka mid ah garabka gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdilaahi
ayaa waxa uu sheegay in kala jabkii guddiga doorashada ee Somaliland uu ka dambeeyay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal. waxa kale uu ku eedeeyay Maxamed Xasan Maxamed Ciro oo gudoomiyaha guddiga doorashada federaalka in uu hareer maray nidaamkii heshiiskii doorashada ee uu garwadeenka ka ahaa ra'iisul wasaare Roble. wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya ayaa ugu dambeyntiina sheegay in khilaafka iyo kala jabka guddiga doorashada Somaliland la isku afgartay in kulamo laga yeesho ayada oo bogoga guddiga qaran laga saarayo in guddoon la doortay taasi oo aan weli dhicin sida uu sheegay. dhanka kalena daawadayaal haddaynu eegno gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa soo saaray baaq degdeg ah xiisad xoogan ayaana ka taagan gobolkaasi. gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Grade oo maanta warbaahinta kula hadlay degmada Garbaare ee xarunta gobolka Gedo ayaa soo saaray baaq degdeg ah oo uu ku dalbanayo in la joojiyo dagaal xoogan oo ka dhashay xiisad u dhaxaysay laba beelood. gudoomiyaha ayaa ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya deegaanka Bohol Garas in ay si degdeg ah u joojiyaan dagaalka ayna ku xaliyaan xiisada ka dhaxaysa miiska wada hadalka si xalka madambeysa looga gaaro dagaalkaasi. waxa uu carabka ku adkeeyay in dagaalka ay dad ku dhintaan maahina uusan waxba soo kordhinayn wuxuuna ugu baaqay odayaasha dhaqanka degmada Doolow in ay u kala dab qaadaan oo kala dhex galaan dhinacyada dagaalamaya. hadalka gudoomiyaha ayaa imaanaya iyada oo saacadihii la soo dhaafay uu dagaal beeleed ka dhacay deegaanka Bohol Garas oo hoostaga degmada Doolow ee gobolka Gedo. si kastaba ha ahaatee waxaa xilligan degan xaaladda guud ee deegaanka Bohol Garas ee degmada Doolow oo uu ka dhacay dagaalka u dhaxeeya labada beelood. hase yeeshee waxaa walaac laga muujinayaa in mar labaad dib u bilowdo maadaama ay weli taagan tahay xiisada u dhaxaysa beelahaasi. dhinaca kalena daawadayaal haddaynu eegno maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa gaaray heshiis cusub. maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa gaaray heshiis cusub kaasi oo waxa ka taraya dhanka ammaanka isla markaana culays hor leh saaraya al-shabaab ay labada maamul kula jiraan dagaal xoogan. wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in maamulada Galmudug iyo Puntland ay sameysanayaan iskaashi dhinaca amniga ah si ay si wada jir ah ula dagaalamaan al-shabaab. heshiiska cusub ee labada maamul ee dhanka ammaanka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ay dhowaan dhaqdhaqaaqyo ka bilaabeen al-shabaab deegaano ka tirsan koonfurta gobolka Mudug. sidoo kale waxay labada maamul bilaabi doonaan howlgallo ay si wada jir ah u fulinayaan ciidamada Puntland iyo Galmudug si loo wiiqo awoodda al-shabaab sida uu sheegay wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Galan. wasiirka amniga dowlad goboleedka Puntland ayaa isaguna sheegay in Puntland ay ku biirayso dagaalka adag ee Galmudug oo kula jirta al-shabaab isagoona xusay in marnaba maamulkooda uu kala tashan doonin dagaalka ka dhanka al-shabaab. si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horeysay ee maamulada Puntland iyo Galmudug ay heshiis ku gaaraan iskaashiga dagaalka ka dhanka al-shabaab. hase yeeshee waxa uu midkan noqonayaa midkii ugu cuslaa ee ciidamada labada maamul ay si wada jir ah u fulinayaan. welina daawadayaal waxaa daawanaysaan barnaamij wareedka janalka nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka bal mar kale aan ku xasuusiyo daawadeena qiimiga leh in janalkan aad subscribe saarto aad furata gambalelka sidoo kalena daawade muuqaalkan like saar si uu saaxiibo fara badan u gaaro markaana daawade ku soo dhaw qodob kale oo kamid ah qodobadii oo dhacan idinkugu soo gudbinay faahfaahintiisa. Itoobiyaanka ku nool magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland ayaa dibadbax dhigay iyagoona ka cabanaya arrin xasaasi ah oo lagu eedeeyay dadka qaxootiga ay ka soo jeeda dalka Itoobiya gaar ahaan qowmiyadda Oromada ee ku nool magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ayaa maanta dhigay barnaamij cabasho ah waxayna ka cabanayaan eedeymo culus oo uga imaanaya bulshada reer Somaliland. dadka Oromada ah ee maanta barnaamij dhigay waxay sheegeen in markasta lagu tilmaamo kuwa caruurta xada ama afduubta isla markaana ay soo wajahday cabsi xoog leh oo ka qabaan in dib loo geysto. waxay sheegeen in ilmo yar oo dhawaan gurigooda laga xaday lagu eedeeyay inay xadeen dad Oromo ah taasi oo ku dhalisay cabsi ay ka qabaan in la bartilmaameedsado. dhinaca kale gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Somaliland Cabdikariin Axmed Maxamed oo wareysi siiyay VOA ayaa meesha ka saaray inay jiraan dad halis ku ah amniga dadka Oromada ah ee ku nool deegaanada Somaliland. warbaahinta waan ku arkay cabashada dadka Oromada ah inkastoo aysan noo imaanin oo aysan nala wadaagin waxa ay dareemayaan laakiin dadka intii sharci dalka ku joogta dawladda ayaa amnigooda damaanad qaaday sida ummadda kale ee reer Somaliland ma jirto sabab ay cabasho u muujiyaan ma jiraan dad isku abaabulaya inay dhibaateeyaan dadka Oromada ah
ayuu yiri Cabdikariin Axmed Maxamed gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha ee maamulka Somaliland. guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa. haddii aad daawatay muuqaalkan like saar oo la wadaaga asxaabtaada si uu saaxiibo fara badan u gaaro. ku soo biir channelkeena adigoo subscribe inoo saaraya oo furanaya gambalaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawada qaybta hoose ee faarada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada saliimka ay nagu wadaag tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal inta dib isugu kulmi doono sidaas nabadgelyo.